muddo hadda laga joogo dhowr bilood waxaan idiin soo gudbiyey dukaankan iga dambeeyo oo tabeelihiisu ku qoran yahay Maytag Coin Laundry waxa uu ahaan jiray meel labandaayo ah oo dharka lagu dhaqo balse muddo hadda laga joogo ilaa iyo 4 bilood ka hor waxaa jirtay in dukaankani dad ganacsato ah ay doonayeen inay furtaan oo ay ka dhigaan dukaan ay ku iibiyaan xashiishka sidaad ka warqabtaan ama culimada iyo dhammaan odayaasha magaalada Toronto aan hore idinku soo gudbiyay uga hadleen inay runtii dhibaato iyo khatar weyn ay ka iman karayso haddii dukaankan lagu iibiyo xashiishka laga furo xaafadani ay noqonaysaa meel aad iyo aad u khariban dhalinyarada iyo dadka kale ee jaaliyadda ah ee halkan degan dhibaato weyn ay ka soo gaari karto haddaba waxaa jirta in jaaliyadda Soomaalida dadaalkii weyn ay u gashay dukaankani xashiishka inaan laga furin halkani waxa ay u qabteen 4 lawyer oo arintaasi dacwadaasi ku jira dacwadan waxa ay qaadanaysaa muddo dadka dukaanka furanayana runta ayaga laftigooda kaalintooda ma yara oo dadaal xoog leh ay u jiraan ayagana lawyer qabsadeen runtii arintu meel waxay maraysaa runtii rajadeedu ay u fiican tahay inaan dukaanka halkan laga furin waxaan arintani ka wareysay Cabdullaahi Wall oo ka mid ah guddiga xuquuqda shaqaalaha ee magaalada Toronto oo muddo dheer arintani runtii abaabulkeeda iyo ka hortaggeeda iyo kicinta bulshada iyo sidii loo joojin lahaa ku jiray ayaan ka warramay waxa uu ii sheegay dukaankani xaaladiisa sida ay marayso iyo garyaqaanada ku jira dacwadoodu meesha ay marayso aad baa u maasantahay waxaan doonayaa inaan Soomaalida dhageysanaysa ee ku nool gobolkan Ontario gaar ahaan xaafadda Dixon dadka ku nool inaan warbixin rasmi ah ka siiyo meesha uu marayo dukaankii shatiga maandooriyaha la codsaday meesha uu marayo xaalkiisa hadda waa la socotaa Muxudiinow inaan hore u fayl gareynay bitishino badan kadib waxaan qabsanay guddiga khamriga iyo qamaarka asagoo aan go'aan ka gaarin in shatiga uu bixiyo ama inuu diido ayaa waxaan qabsanay looyaro uu hogaaminayo 4 looyaro uu hogaaminayo Maxamed Doolli ayaan qabsanay mar alla markaan qabsanay waxay xareeyeen ama fayl gareeyeen injection afka qalaad waxa lagu yiraahdo oo af Soomaaliya lagu yiraahdo is-hortaag go'aan ayagoo aan gaarin ayaa is-hortaaggaas looyaradeena xareeyeen judgekii wuxuu qabtay dacwadii in la dhageysto jimcihii aan soo dhaafnay 14keedii ayaa dacwadii waxa lagu dhageystay teleconference waxaa ku jiray line-ka ku jiray looyaradii guddiga khamriga iyo alcoholka iyo judgekii ayaa ku jiray waa la dhageystay labada dhinac la dhageystay judgekii wuxuu yiri fariista 2 week ayaan idin siinayaa wixii aad isku waafaqdaan iyo wixii aad isku diidan tihiin hal ii soo gudbiyo marka Soomaalida dhageysanaysa waxaan u sheegayaa ilaa iyo hadda inaan go'aan laga gaarin rajadeena inaan ku guuleysano shatiga in loo diido qoladan doonaysa in dukaanka maandooriyaha meesha ka furtana rajadeena 90% ay maraysaa marka Soomaalida waxaan leeyahay isdajiya waa dagaalameena waxaad garan kartaan Abukaato Maxamed Doolli oo aad arintan uga dalqaday ayaa dagaal culus oo cirka iyo dhulka ah la galay qoladan waxaan rajaynaynaa haddii Rabbi idmo inaan ku guuleysano horta masaajidada oo dhan aad iyo aad gaar ahaan Khalid bin Waliid iyo Daarul Hijra Sheikh Abubakar Sheikh Saciid Sheikh Xasan Ali community-da Cismaan Dheere Mahad Afweyne magaraysa Saynab Xuseen Falastiin Habiba Ali Aadan kulli community-da oo dhan si fiican oo taageero leh ayay baxsheen muxuu ahay ganacsatada halkan oo bangiga iyo drug martiga iyo kulli waana support gareeyeen marka haddii arrintii meeshaas maraysaa waa cirka iyo dhulka dagaal ah ayaan ku jirnaa Soomaalida oo dhanna liidaradoodii iyo community-ga oo dhan waana support gareynaya waxaan ugu baaqayaa in la isdajiyo oo la midoobo haddii xataa loo ogolaado inay shatiga la siiyo qolaas loo ogolaado dacwadii ma dhamaanin abiil baan ka qaadaynaa abiilkana wuxuu soconayaa muddo soconaya marka hal isdajiyo hal ilaahay hadna loo bariyo in dukaankaas qolooyinka doonaya inaan ka furto maandooriyaha inaan ka guuleysano walaalayaal waxaan maanta ag taagannahay oo hor taagannahay dukaan dagaalkiisa muddo lagu jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in lagu guuleysto guushuna waa dhowdahay rajo fiican baan qabnaa dagaal badan baa la galay community-ga oo dhan baa ka diriray masaajidii iyo culimmadii iyo odayaashii iyo ganacsatadii iyo dhallinyaradii gabdhihii raggii iyo dumarkii oo dhan waa ka qayb galeen dagaalkaas waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano dukaankan gadaashayada haddii uu ogolaansho helo oo barmadka uu helo oo hadda ay sugayaan annaguna dagaal kula jirno waxaa imaanaysa in sarahan dhaadheer oo maxay tahay Dixon
oo maxay ahaatay number aad u weyn oo meesha ugu badan oo Soomaalida inta isu jirta ay degan tahay dhalinyarada ka soo bixi lahayd inay wax kasta ama galab kasta hortiisa lagu gado xataa guyi aan aqoon aragtidaas ay arkayaan wax badan bay maxay ahaatay dhibaato u geysanaysaa marka waxayna ka codsanaynaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Toronto iyo nawaaxigeeda degan arrintan in la taageero la garab istaago loo midoobo in arrinta laga hortago aad iyo aad baan maxay ahaatay arrintaas u codsanaynaa u adkaynana sida odayaasha iyo maxay ahaatay culimada iyo akhyaartii oo dhan uga qayb qaadatay qof walba inuu qaybtiisa qaato oo arrintaas uu ka hor yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaala baynu ugu dhowaanaynaa ummadeenna iyo dhallinyaradeenna ayaynu ku badbaadsanaynaa waa arrin waajibina ku ah inaynu maxay ahaatay ka hortagno dadka qaar waxaa dhici karta inay isdhahaan maxay ahaatay meel kasta laga helayaa sax meel kasta laga helayaa laakiin gurigaada hortiisa markii lagu gadayo iyo meel fog markii loo aadayo waa kala duwan tahay carruur yar yar oo aan aqoon aan shaqo ku lahayn baa laga yaabaa dukaanka hoosta loo soo geliyay daraadiis inay ku bartaan marka community-ga iyo Soomaalida iyo jaaliyadda waxaan ugu yeeranaa arrinta